بسم الله. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa walaalahayga Soomaaliyeed meel walba daafaca caalamka joogaan. salaan kadib alxamdulillah Allah ba mahad u sugan tahay. inta kadib insha Allah waxaan rabaa inaan ka hadlo hal kelimad oo runtii daba joogta qarixii ama dilkii foosho xumaa oo ka dhacay Kismaayo oo lagu dilay caalimkii ummadda Soomaaliyeed aabihii dacwada فضيلة الشيخ عبد الناصر حاجي أحمد شيخ يوسف إلهي رب سبحانه وتعالى شهادة ساقبله. انت أنا الموضوع قدي محاربة إن قصير إذن لو ذا قصة داس أو أرنتنا أصوئك مركز كدي من الموضوع أنا قد إن شاء الله قصة داس وحي دحمرتي سحابي يا رسول كنا صلى الله عليه وسلم. سحابي قاس وسحابي قالوا يقانو أسامة ابن زيد. أسامة ابن زيد iyo saxaaba la mid ah baa Nabiga sallallahu alayhi wasallam dagaal u diray ama jihaad u diray. jihaadkii bay aadeen way dagaalameen iyagoo dagaalkii ku jira oo jihaadkii wada ayaa Usaama wuxuu arkay nin gaala oo meel taagan. wuxuu damcay Usaama ninkii intuu u yimaado inuu dilo. ninkii geed u dhow wuu kaga dhuuntay wuu ka daba tegay. markuu ka daba tegay buu wuxuu sameeyay ninkii markuu arkay Usaama oo geedkii kala soo daba wareegay oo korkiisa taagan oo seeftii madaxa kaga haya buu ninkii wuxuu yiri ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasuulullah buu yiri waxaan qiray allah xaq lagu caabudo inuu jirin ilaahay keligii mooyaane sidoo kale waxaan qiray oo rumeeyay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inuu nabi rasuulka ilaahay yahay. Usaama inta kuma joojin ninkii uu dilay madaxa ka jaray. madaxa markuu ka jaray dagaalkii waa la galay. saxaabadii dagaalka soo dhameeyeen way soo laabteen Madiina loo soo laabtay. madiina markii loo soo laabtay arintii waxay gaartay nabiga sallallahu alayhi wasallam. nabiga arintii markay gaartay Usaama u yeeray markaas wuxuu ku yiri Usaama ma waxaa dishay markuu ashhaatay kadib baad dishay. markaas wuxuu yiri rasuulka ilaahay haa waan dilay laakiin wuu ku gabanayay shahaadada buu yiri oo wuxuu rabay inaan ka tago. markii nabiga sallallahu alayhi wasallam hal su'aal weydiiyay wuxuu yiri ashaqaqta min qalbihi samiyad jeexday oo qalbigiisa inta dhex gashay miyaad soo ogaatay in ay arintan run ka tahay iyo in ay been ka tahay marka kadib aad ogaatay in ay been ka tahay asaasaad ku dishay. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku celceliyay oo Usaama ku leeyahay Usaama maxaad sameyn doontaa la ilaha illa allah maalinta qiyaamada markay ku timaado ay kula doodo maxaad ugu jawaabi doontaa. sida la ajligeeda waxaan leeyahay raggan caadaystay dhaqanka ka dhigtay culimada dhiigooda inay daadiyaan. raggan dhaqanka ka dhigtay culimada in ay target ka dhigtaan. raggan mar walba culimadii uu daba jooga waxaan leeyahay war culimada tawxiidkan ay mar walba afkooda uusan ka qalalaynin ay ku tasbiixsanayaan salaada hadii tukanayaan marka ataxiyaadsanay ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna rasuul ay leeyihiin muxuu waxa la yiraahdo dadka barayaan xagee ka gelisan maalinta qiyaame markuu tawxiidkaasi idin la doodo. tawxiidka ku kalifay Dr. Ahmed Xaaji Cabdiraxmaan ilaahay shahaadadiisa ka aqbalay oo doctorkii Boosas lagu dilay ku kaliftay in uu habeen barkii masaajidka yimaado 9 saac iyo bar ama 3 iyo barka habeenimo uu masaajidka yimaado oo ku kaliftay in uu masaajidka inta uu joogo tasbiix iyo tahliil iyo takbiir uu wado. tawxiidka ku kaliftay Dr. Ahmed Xaaji Cabdiraxmaan isagoo sooman in uu masaajidka yimaado. muxuu tawxiidka ku kalifay Dr. Ahmed Xaaji Cabdiraxmaan markii ummadii masaajidkii salaad ay tukadana ay bixeen inuu masaajidka sii fadhiyo oo sii tasbiixsado ilaa muxuu waxa la yiraahdo qorraxdu ka soo baxdo. doctorka tawxiidka ku kalifay isagoo salaatu duha aan tukanin inuu masaajidka ka baxo. توحيدك مالنت قيامي حقيقة جلسة. توحيدك كوكليفي شيخ اللي هذا عبد القادر نور فارح يسجن شهادة الله أقبل أو جرو ولا جود ليه يسجوا إيج أو دقة أو إيج شو إنه دين تكشقية دتك توحيد كبره دتك وانا كبره مساجد كلينك وهري وكجرو أو يسجوا ثلاث أتاجن أو إياك نعبد وإياك نستعين له أو كل علينا يا إنتاس عاد إنتاس أتمادين برتم مسكحدي سداد توحيدك حق maxaad ku jawaabi doontaan marka uu maalinta qiyaamada intuu idin yimaado oo idin la doodo maxaad ku jawaabi doontaan. tawxiidka ku kalifay Sheikh Abdul Naasir Xaaji Ahmed Sheikh Yusuf in uu 50 sano
muddo ku dhadhow uu dacwada ku jiro oo inta dadka barayay laa ilaaha illa allah oo inta dadka tawxiidka barayay oo inta dadka tawxiidka ka saxayay uu maxay barayay oo isagoo tawxiidka ku guda jira oo dadkii diinta gaarsiinaya oo dacwadii gaarsiinaya oo kutub akhrinaya oo nadwo ku jira intaad u timaadeen aad gaarigiisii ku gubteen war xagee ka gelaysan tawxiidkaas midada labaad dad qof walba markuu dhinto oo qabriga la geeyo waxaan ognahay waxa la weydiinayaa 3 su'aalood su'aasha koobaad waa man rabbuka su'aasha labaadna waa ma diinuka su'aasha saddexaadna waa ma nabiyuka waye culimadii baraysay dadka man rabbuka rabbiga waake culimadii baraysay dadka culimadii horseedka u ahayd culimadii dadka saxasi markaa disho oo adigan dilaya aad kow ka tahay وما دينك الدين علماء دتك برسي مركا دشو وأدو كو أدكتهاي وما نبيك نبيك صلى الله عليه وسلم وحو حق السمايي يوحو سن حق السمايين علماء أكل سارس دتك مركا دشو أو أنت تصهر فريسة أما أتقرح كدشو أما أتحبت كدشو أديجا إله الله أو كو كتهاي ورمالنت قيامة محاد كتوابسا maxaad ku jawaabaysaan maalinta qiyaame culimadii ku saxi lahayd waa dishay oo ilaahay ku bari lahayd waa dishay culimadii qabriga ku qabriga iyo wanaagiisa kaaga sheekayn lahayd waa dishay war maxaad maalinta qiyaame ku jawaabaysaan mise ummadda ma waxaad rabtaan inaad ka dhigto dad camniyaa oo indhala oo aan xaq fahmaynin oo aan xaq arkaynin ummadan markaad leysaan war yaad u socotaan inaad xukuntaan hadaad xukun xataa doonaysaan ma dhagaxanta iyo geedaha rabtaa inaad xukuntaan ani waa fahmi waaye waxaan leeyahay marka nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis waxa jira oo oranayo luhumul ulama al masnun culimada hilibkoodu wuu sumaysan yahay man shamma marad qofka uriya wuu ku xanuunsadaa yaani qofka caydooda iyo xumaantooda mar walba daba jooga oo mar walba wax ka sheega oo mar walba xumaantooda daba orda qofkaas wuu ku xanuunsadaa shakhsiyan buu u xanuunsadaa nafsiyan buu u xanuunsadaa caafimaadiyan buu u xanuunsadaa aqliyan buu u xanuunsadaa diiniyan buu u xanuunsadaa akhlaaqiyan buu u xanuunsadaa qofkaasi waman akala maat qofka cunaana hilibkoodu wuu ku dhintaa yani waa qofka dila mahma taala umra وقت يعني سوال بو عمره يسوي ديرادو سوال بو عمره دير وقفكاس وهلو آخر كيس وحو كل منايا نولل aad u xunbo ku dhimanaya wuxuu noolaanaya nolol aad u xunbo noolaanaya waayo nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahay wuxuu noogu tilmaamay in huwa illa wahyun yuha nabigu wahyi mooyaane wax kale kuma hadlo marka kana waa hadalkii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu leeyahay culimada hilibkoodu wuu sumaysan yahay midda kale xadiis waxa jira nabiga sallallahu alayhi wasallam oranayadana culimadu anbiyada waxay ka dhaxleen أنبياء أم بيدحلان العلماء الورثة الأنبياء وعدة كلية أو نبياش دحشي عدة كلية أو أنبياء دحشي وعلماء علماء حداد دي شيء سو معناه يدو ماهن وحان لا دغالميا نبي صلى الله عليه وسلم وحان لا دغالميا دينتا وحان لا دغالميا وناغا وحان لا دغالميا خيرك إلهي رب سبحانه وتعالى كعبسدا ور إلهي كعبسدا وعلماء أدلكودا جوجتيستين علماء أدلكودا عادة كدغتين علماء أدلكودا محاو waxa la yiraahdo amalka ka dhigateen ilaahay uga cabsada oo culimada faraha ka qaada oo ummada Soomaaliyeed faraha ka qaado oo waxa aad doonaysaan wanaag iyo sharaf ku dhamaysta laakiin dilkan iyo qaraxan iyo balaayada aad ummada la daba joogtaan war Allah rabbi subhanahu wa ta'ala uga cabsada wallahi maalin aan maanta ahayn baa jirto oo la isla xisaabtamayo wallahi maalin aan maanta ahayn baa jirta oo Allah rabbi subhanahu wa ta'ala qof walba cadaaladiisa la horgeynayo war qof walba ilaahay ka cabso qof walba ilaahay xasuuso qof walba maalinta qiyaamo xusuuso qof walba qabri yar oo 2 mitir ka dameeyo xusuuso wallahi inuusan kan ku soo diray uusan kula soconin wallahi kan wax soo diray oo kan adres inuusan kula soconin ee adiga kaligeed ilaahay la kulmaysa qof walba taa xusuusnow qof walba ilaahay rabbi subhanahu wa ta'ala ka cabso ilaahina u noqo ilaahay rabbi subhanahu wa ta'ala u toobadkeen inta aan noloshan joogno inta aan adduunkan joogno baan jaanis haysana jaaniska ilaahay ina si aan ka faa'iideysano war intaas baanu jaanis haysanaaye aan jaaniska ka faa'iideysano intaasaan ku soo koobaya wixii aan khalday naftayda iyo shaydaan bay ka ahaadeen wixii aan saxina allahi waafajiyay ba mahad iskale wa subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka ta'ala judduka wa la ilaha ghayruka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh